يهود بين اعتراف توياب وحسكسي يا بدن إن سفارة أنجيسني قدس أنجيسني معنى هذا وحويان يهود يجا إسكال بيت المقدس دعيها كدعان والله هدي كركان لغو غونايو هدي ديارadaha دنونka إسرائيليintu argeyso gudahood lagu dilayaan lan nughayir wala nubadil badali mayno mowqifka shariicada iyo diinta iyo aqeedadu inoo bismillaahir rahmaanir rahiim waana wanaagsan akhyaarta hawadiga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan YouTube-kan wariye wacane iyo page-ka Facebook ee wariye wacane labadaas meel ayaad ka daawan kartaa wararkayga macluumaadkan soo socda hadda ee baydmeyntu soconayo waxaynu ku faaqidi doonaa Somaliland oo soo saartay awaamiir culus sheegtayna i'tiraafka ay ka heshay Israa'iil iyadoo 30 sano raadinaysay cid ka hor timaada haday noqoto shayb iyo shabaab iyo sheekhba inaan midna looga aabeeyeli doonin oo kabaha lala kormari doona ayaa la sheegay hadduu dalka gudihiisa joogo iyo hadduu banaanka joogo oo Somaliland ka tirsan yahay intaana ku soo gudbin qodobkaasi oo faahfaahsan fadlan muuqaalka leeg saar oo iska share garay aynu ku bilownay saaxiib saad muuqaalka hordhiisa ku maqdeen xukuumadda Somaliland ee hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro ayaa sheegtay kuna goodisay qof kasta oo i'tiraafka Somaliland ka hor yimaada hadduu oo shabaab yahay haddii uu sheeb yahay iyo haddii uu sheekh yahayba inay kabaha la kormeeri doonaan dhawaan waxa dhacday golayaasha Somaliland iyo guurtida odayaasha qaar kamid ah in ay sheegeen culimadan ka hor imaatay i'tiraafka Somaliland in gebi ahaanba la toogto oo tiirka la geeyo dadka falanqeeya arrimaha Somaliland waxay leeyihiin arrintaasi waxay dhalin kartaa kacdoon shacab oo abaabulan oo culimada iyo shacabka maadaama ay dawladda shacabku doorteen taasna waxay keeni kartaa qas iyo qalalaaso ay Somaliland faraha ay la gasho waad ogeydeen dagaalkii ka dhacay iyaga sool oo imka gooday oo dhulbaanta oo noqotay maamul gaar ah oo la yiraahdo maamulka waqooyi bari noqotay inta kale Somaliland oo si hartan waxa laga yaabaa in iyaguna kala go'aan maadaama culimada iyo shacabka la caburiyo maadaama dadkii ka hor imaadeen aqoonyahanno wax garada iyo culimo ay ahaayeen Somaliland ayaa waxay doonaysaa qudusta dhulka reer Falastiin ka tirsan ee wadanka Islaamka kamid ah inay ka furato safarad hadde ma ahan Tel Aviv ahan ay waa qudus oo dhulka reer Falastiin ah Somaliland ay i'tiraaftay qudus oo wadan muslimna laga dhacay in Israa'iil wadan ay dhul ay leedahay inuu yahay taas oo noqotay iyaduna kala kala dheeri culimaduna ay ka hadleen warkooda culimada ka hadashana waa daawan doontaan يهود بين اعتراف توياب وحسكسي يا بدن إن سفارة أنجيسني قدس أنجيسني معنى هذا وحويان يهود يجا إسكال بيت المقدس دعيها كدعان والله هدي كركان لغو غونايو هدي ديارadaha دنونka إسرائيليintu argeyso gudahood lagu dilayaan lan nughayir wala nubadil badali mayno mowqifka shariicada iyo diinta iyo aqeedadu inoo yeelayso